Cunsuriyadda ayaa waxay ku soo badanaysaa wadamada Yurub iyo sharciyada in la isku adkeeyo. Sababtana waxa weeyaan dhaqaalaha ayaa xumaada. Mar kasta oo dhaqaalaha xumaado, cunsuriyadana kor ayay u soo kacdaa, dowladana sharciyada ayay adkaysaa. Horeyna waa loo soo arkay. 2018 ayaa la soo arkay, 2002 waa la soo arkay, iyo 2016 mar sharciyada la isku adkeynayay. sababtana waxa weeyaan dowladda badanaa danta inaga leedahay wadamadan ayaa waxay tahay in aan shaqo qabano. Shaqadaas oo ay qaban waayeen dadka waddanka u dhashay ama shaqooyin tiro badan oo wax qabto la laayahay. Marka haddii ay baahidii ka baxda ajaanibka loo qabay, waxa bilaabanayso in sharciyada la isku adkeeyo. Dad badan oo shaqooyinka laga soo eriyey xanaaqa waxay kula duldhacayaan dadka ajaanibka ah oo waxay leeyihiin dadkan canshuur badan ayaa nagaga baxdo oo lacagta anaga ayay nagu filaan leedahay, dowladda waa inay joojisaa. Sidaas daraaddeed dowladdana waxa ay soo dejisaa sharciyo cusub ku adkeynaysa dhalashooyinka iyo sharciyada waqtiga dheer oo ama loo yaqaano permanentiga ah way adkaysaa. taasna waa iska normal. Marka hadduu dhaqaalaha uu kala furmo, isla markii albaabadii ajaanibka dib ayay u furmayaan, sababtoo ah baahidii ayaa soo laabanayso, dadkiina waa ay mashquulayaan. Marka sidaas loola socdo, dadka cunsuriyiinta ahna il gaar ah hal iskaga hayo oo hal isku badnaado. dadka sharciyada raadinayana insha Allah ilaahay ha idin fududeeyo. dadka hadda waqtigan soo geli doonana waxaa leenahay waqtigan waqtigii ay adkeyd weeyaan wadamadan ee xalala socdo. igu xirnaa flow for more. Thank you.